Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni diblomaasi oo aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ahayd maalintii 106 ee tan iyo markii dalka duulaanka uu kusoo qaaday Ruushku dagaalka. Ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya magaalada istiraatiijiga ee Severodonetsk ayaa la sheegay inay inta badan magaalada gacanta ku hayaan iyadoo gantaalo xoog leh ay la dhacayaan ilaa iyo hadda inta gacantooda ka maqan, sida laga soo xigtay gudoomiyaha gobolka Luhansk Serhiy Haidai. madaxweynaha dadka Ukrainiyiinta ah Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in dagaalka ka socda magaalada Severodonetsk uu yahay mid aad u khasaaro badan, waxaana uu sheegay in la oran karo inuu yahay kii ugu darnaa intii dagaalku ka socday dalkiisa. ku-xigeenka duqa magaalada Mariupol waxa uu sheegay inay heleen meydad u dhaxeeya 50 ilaa 100 meyd, kuwaas oo ay ka heleen guryihii dhaadheeraa ee hore ciidamada Ruushku u dumiyeen. waxa uu sheegay meydadka laga helayo magaaladaas inay yihiin kuwo aan kala joogsi lahayn, maalin walbana la helo meydad cusub. gudoomiyaha gobolka Donetskna waxa uu sheegay in gobolkiisa maanta ciidamada Ruushka ay ku dileen 4 ka mid ah dadka rayidka ah kuna dhaawaceen 11 kale. sidoo kale gudoomiyaha Luhansk ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka gobolka isagana 4 qof ay ku dileen kuna dhaawaceen 6. wakaaladda wararka dalka Ruushka waxa sheegtay 2 mutadawwac u dhashay dalka Ingiriiska iyo mid Maroccan oo u dagaalamayay Ukraine oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Ruushka in la filayo in lagu xukumo dil toogasho ah. qoraal ka soo baxay dowlado wada jir oo ay ka mid yihiin Czech, Hungary, Poland iyo Slovakia waxa sheegeen Ruushku intii uu weerarka ka waday gudaha dalka Ukraine inuu ku riday dalka 2100 gantaal, kuwaasoo 600 oo ka mid ah ay ka imanayeen dalka Belarus. diblomaasiyadda madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in dowladda Ruushku diyaar u ahayn wada hadal ay la gasho dalka Ukraine si loo soo afjaro dagaalka, isagoo sheegay inay weli isku haleynayso awoodda ay leedahay, waxaana uu ku eedeeyay reer galbeedka inay taas sabab u yihiin maadaama aanay soo dirin hubkii laga sugayay. dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayaa dhawaantan in kula dhex maro kulankaas oo intiisa badan lagaga hadlayo xaaladda ka taagan gudaha dalka Ukraine. ra-iisul wasaaraha Ukrainiyiinta Denis Shmyhalna waxa uu uga mahadceliyay midowga Yurub ogolaanshada ay ogolaadeen Ukraine inay noqoto musharax u taagan inay ka mid noqoto midowga. dowladda Ukraine waxay dhagar ku oogtay 8 askari oo Ruush ah, iyadoona ognahay horena inay sidaas oo kale xukumo ugu riday 3 askari, waxayna sheegtay inay u furan yihiin 16,000 oo kiis ayna ku raad joogto sidii askarta Ruushka u soo qaban lahayd maxkamaddana u horkeeni lahayd si loogu qaado dambiyadii ay ka galeen dadka Ukrainiyiinta ah. wadaadkii ugu sarreeyay Yuhuudda ee dalka Ruushka ayaa la sheegay inuu ka baxsaday magaalada Moscow kadib markii uu sheegay in cadaadis badan kaga yimid dowladda Ruushka oo ku cadaadinaysay inuu taageero duulaanka Ruushku ka wado dalka Ukraine. waxaan ognahay wadaadkaas iyo madaxweynaha dalka Zelensky inay labaduba yihiin Yuhuud. dhaqaalaha hay'adda kormeerta dhaqaalaha adduunka waxay sheegtay sanadkan in dowladda Ruushka dhaqaalaheedu hoos u dhici doono 15%, iyadoo aynu ognahay wasiirka dhaqaalaha dalka Ruushku inuu sheegay si kastoo cunaqabatay loo saaray dowladdiisa dhaqaalaha Ruushku inaanu ahayn mid hoos u dhacay. hay'adda qaramada midoobena waxay ka digaysaa gaajo kusoo fool leh adduunka, iyadoo bilowgii gaajada la dareemayaba. waxay sheegtay hay'adda qaramada midoobay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ka dhex socda inuu u diidayo qorshihii hay'adda qaramada midoobay ay ku doonaysay in 2030 la soo afjaro gaajada saa'idka ee ka jirta adduunka. iska badaa gaajadaas wax laga qabtase waxay sheegtay qaramada midoobay inay hadda kusii adkaatay dadkii iyagu cuntadooda la bixi karay qiimihii ay wax ku iibsanayeen. adduunka gebi ahaantiisuna uu yahay maanta mid uu ka jiro sicir barar xoog leh. guddiga ka wada shaqeynta dhaqaaluhuna waxay sheegeen dagaalka Ukraine inuu adduunka khasaare ba'an u geystay, iyadoo wax kasta ay noqdeen kuwo qaali oo aan la goyn karin. shirkadda caanka ee telefoonada ee dalka Shiinaha laga leeyahay Huawei waxay sheegtay inay bilaabayso inay xirto dukaamada ay ku leedahay dalka Ruushka, taasoo ay ku shababaysay inaanay jirin dad badan oo wax ka iibsada. shirkadda baabuurta samaysa ee Volkswagen lagana leeyahay dalka Jarmalka oo iyadu hore ugu lahayd 2 warshadood dalka Ruushka waxay ku wargelisay shaqaalaheeda ka shaqeeya mid ka mid ah warshadahaas haddiiba ay damcaan inay si iskooda shaqada uga tagaan inay lacag siin doonto. shirkadda Volkswagen ayaa doonaysa inay shirkadaheeda xirto maadaama dowladda Jarmalka iyo reer galbeedka ay cunaqabatay nasaareen dalka Ruushka kuna amreen shirkadahoodu inay iskaga baxaan. dowladda Ruushka iyo Turkiguna waxay isku afkarteen in la sameeyo waddo laga dhoofiyo qamadiga Ukrainiyiinta, taasoo Ruushku ballan qaaday inuu u sameynayo waddadaasi nabadgelyo ay ugu gudbi doonaan, balse isla markiiba heshiiska waxa qaadacday dowladda Ukraine oo sheegtay inaanay isku haleynayn Ruushka una gacan gelin doonin qamadigeeda. durbadiiba qaramada midoobay waxay sheegtay inay aada uga xun tahay
dowladda Ukraine qaadacadda ay qaadacday heshiiskaas dowladda Turkigu ay soo dhamaysay, loogana baahnaa inay ogolaato in qamadigaas uu gaaro dadka u baahan. waxay irdabadeedna dowladda Ruushka waxay sheegtay inaan iyada shaqadeeda aan ahayn sidii qamadiga Ukraine loo dhoofin lahaa, ayna samaysay wixii taraankeed ahayd oo ay ku caawin lahayd dadka adduunka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov waxa uu sheegay in dowladda Ukrainiyiinta looga baahan yahay inay miinooyinka ka saarto dekedaheeda haddiiba ay doonayso qamadigeedu in si nabadgelyo ah uu gaaro dowladaha adduunka. daawadayaal, intaa waxaynu kusoo gabagabeyneynaa xogihii aynu kasoo ururinay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ay ahayd maalintii 106 ee tan iyo markii dalka Ruushku duulaanka kusoo qaaday. wixii xogaha kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan muuqaalka la gareeya mahadsanidin.